بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة ولا مقال كانوا كجور رمي الدنا قار كلا أو كميدا خرافات كا أي تذكر الصومالية درميسيين كارهان خرافات كا أنا علماء كهالين أما أنت لجاه اللي أيرتهاي مرة خرافات كان كجور رمي الدنا وحكوا شمبرتا جوميس تلا هذا الجريها dushooda istaagta iyo dadka Soomaalidu waxay ka rumaysan yihiin isqaniinka qofku carabkiisa markuu qaniino shaashaynta caruurta ilmo yar baa la shaashaynaya way ka warrami doonaa waxa looga jeedo sidoo kale shimbirta haday ku saxarato qof ama gaarigiisa ama gurigiisa iyo waxa laga rumaysan yahay gardaadinta caruurta oo aan ka warrami doonaa waxa looga jeedo farta lagu fiiqo roobka markuu da'ayo iyo waxay Soomaalidu ka tiri farta lagu fiiqo xabaasha iyo qabriga iyo iyadana waxa ay Soomaalida qaar ka rumaysan yihiin waxaan kaloo ka warrami doonaa fariimaha la isugu soo diro WhatsApp-yada iyo Facebook-yada ay ku qoran tahay 3 maalmood gudahood hadaad faafin weydo musiibiyo balaaya kugu dhacaysa waxaan ka warrami doonaa samaanyaha waxa la yiraahdo oo ah lacag laga qaato ilmuhu marka uu dhasho waaye waxa kale ka warrami doonaa roobka masaska wata intaasaan ka warrami doonaa maanta insha Allah tawo horeysaan soo qabanay shimbirta guumeysta la yiraahdo Soomaali badan waxa ku dhahaysaa haday shimbirta guumeysigu ay gurigaaga istaagto ama tukaha madow duu gurigaaga ka dulciyo balaaya dhacaysa oo qof baa dhimanaya dadka qaar bay xitaa waxay ku haysaa argagax iyo walbahaar oo qofkii waxa habeenkii xitaa aanu seexan kareynin oo waxay ka rumaysan yihiin u fiirsada walaalayaal caqiiday gaadhi hadii shimbirtaasi guriga dul istaagto inay meyd uu dhimanayo qof baa dhimanaya ama musiiba dhacaysa yaani balaaya ayay ka filanayaan waa filasho xun oo shimbirta laga fisho xaqiiqadu waxa weeye walaalayaal arintaas waxa weeye waa filashada xun iyo tashaa'umka diintana asal iyo raadtona kuma leh sidoo kale waa dhaqan jaahili dadkii jaahiliga ahayd ee islaamka ka horeeyay dhaqamadii islaamku buriyay ayay kamid tahay waxay ka aaminsanaan jireen shimbirta tukaha la yiraahdo haday laba jeer guu ka tiraahdo meel ay cido sharb iyo balaaya imanaysa bay dhihi jireen haday 3 jeer cidana khayr iyo farxad baa imanaya bay dhihi jireen culimada islaamku waxay dhaheen ibn Hajar uu kamid yahay raxmatullaahi calayh qofka intuu safro isagoo safarkiisa socdaalkii ku jira maqla codkii tukaha ile tukaha balaaya ka rumaysan jireen deetana ka soo laabta safarkii oo islid balaaya kugu dhacaysa qofkaasi kafara uu gaaloobay diintii maxamed uu ka baxay subhanallah illa heerkaas ay culimadu gaarsiiyeen waayo waa qof caqiida ahaan rumaystay in codka shimbirtu ay dhibaato u keenayso dhibta iyo dheeftana labadaba Allah keena oo qadaray jalla jalaaluhu qofka muuminka marka inuu waxyaalaha noocaas u joojiyay waa khuraafaad aan asal iyo raad lahayn haday shimbirtaasi gurigaaga ka dulcido iyo guri kale haday ka cido iyo haday meyd iyo qof dhintay ka dulcido iyo haday subhanallah meel banaana ka cido inta midina ma sheegto xumaan iyo wanaag midna ma sheegto waayahay isqaniinka qofku carabkiisa iyo gowsihiisu ay isqaniinayaan qof baa halkaas iska qaniinaya qofkaas wuxuu ku leeyahay ma taqaana waa la xamanay qof bay xamanayo oo idhigila oo saamartay isid sida qofkaasina waxa weeye waa khuraafaad leh waxyani waa wax khuraafa oo aan asal iyo raad lahayn diintana asal iyo raad toona kuma leh ama isqaniin ama isgogooso cid ku xamanaysa ma tilmaamayso ama cid ku amaanaysa toona ma sheegayso nasallallahu salaama shimbirtu hadii ay kugu saxaroto oo shimbirta dusha sare maraysa ay markaa kugu kaadido ama ay saxaro kugu sii dayso oo jidkaaga ay ku dhacdo ama dharkaaga ama gaarigaaga ama gurigaaga dadku waxay ku dhahayaan taqaana waxa kugu dhacayn wax nasiib wanaagsan lacag bad helaysaa ama awlaad badan iyo ubad badan bad dhalaysaa taasina waa khuraafaad shimbirtii xaarkeedii iyo saxaradeedii ayaa waxa laga filanaya nasallallahu salaam ayaa laga filanaya wanaag bay ku dhacaya maal baan helaya lacag baan helaya subhanallah lacag baabad hesho kulay waa khuraafaad taasina wax ka jira ma jiraan gardaadinta caruurta waxa weeye yadana waa dhaqan Soomaalidu bariga hore lahaan jirtay ilmuhu marka uu 40 gaaro 40 maalmood markuu gaaro hooyadu 40 baxday umusha ka baxdo ilmaha xaflad baa loo dhigaa
dabcan xafladaas iyada laftigeedu waa bidco oo diinta dee saliya raadtoona kuma leh xaflad baa la dhigaa afartan bax la dhaho afartan baxa marka waxaa loo yeedhaa nin ayaa loo yeedhayaa markaa lagu tuhmayo inuu qurux badan yahay ama diin leeyahay ama lacag iyo maal leeyahay ilmaha yar ee dhashay baa laleeyahay dhabarka saar oo xambaar oo garbaha halkan kasoo kala rido tuurta ku qaad oo la carar ilmaha gab waa lala urday waayo maxaa saa loo samaynaya waxay ku leeyihin mataqaanaa ninkani sida ilmaha yar ee dhabarka lagu qaaday kan side oo kalu la mid noqonaya marka hadduu nin ahludiin yahay ilmaha yar ahludiin buu noqonayaa hadduu nin qurux badan yahay nin qurux badan buu noqonayaa hadduu nin lacag leh uu yahay isna taajir weyn buu noqonayaa kullu hada waa khuraafaat wax ay diinteenu inoo sheegtay ma jirto walaalayaal subxaan allah waa khuraafaad iyo dhaqano ayn salya raad diinteena ku lahayn wey farta lagu fiiqo cirka oo markuu roobku da'ayo markay Soomaalidu isu sheegayso roob baa halkaasa roob ka da'aya kada ay bir baaxinta kugu dhufto kada farta ku fiiqo roobka qofkiiba wuu argagaxaya war waa maxaa dhacay yaa kugu yiri roobka farta ku fiiq oo maxaa hadaan farta ku fiiqo waxaan rabay inaan daruuraha sheego meesha inaga xigaan sidaa dheh farta sidaa dhihine oo hadaan saa dhaho maxaa dhacay roobka kala yaacaya yani subxaan allah u fiirsa caqiidadaas far la fiiqay baa roob kala kaxaynaysa far la fiiqay baa daruuraha kala kaxaynaysa oo roobkii uu ku qaadaya waa caqiido qaldan qofku hadduu wax noocaas uu rumaysto khuraafaad ayuu ku dhex jiraa nasallallahu salaama Soomaali badan baa ficiladaas sameeyay waliba ha u badnaadaan dadka waaweyn ayaa maaragtay arrimaha aaminsan nasallallahu salaama waxa kamida qabriga ama xabaasha hadaad farta ku fiiqdo oo saa ugu fiiqdo way kada war waa qaniini minka farta farti wala qaniinaya war waa maxaa fartayda qaniiyadeeda waa maxay farta la qaniinayo xagga ay iska soo gashiyo xabaashan oo kule farta laguma fiiqo xabaasha hadaad ku fiiqdana qaniin waa khuraafaad iyadana maanaan arkin inta cilmigii garaadkaygu gaadhsiisan yahay meel ay diinta kaga taalana maanaan arkin waa khuraafaad kale haddii far lagu fiiqiyo haddii shantaba lagu fiiqiyo haddaad gacanta saa ugu soo fiiqdood ku ishaarto wax ay ku kala duwan yihiin maanaan arkin fariimaha la isu soo diro ee message-yada ah ee Facebook iyo Instagram iyo Snapchat iyo TikTok ama YouTube iyo wax halaale wixii social media jira ama Twitter la isugu soo diro ee la dhaho haddii aad faafin weydo balaaya kugu dhacaysa haddaad 3 casho gudahood ku faafiso waxa weeyaan haddaad faafin weydo balaaya dhacaysa haddaad faafisana dhowr casho gudahood ba wax aad ku faraxda aad helaysaa taasina waa khuraafaad kale weeyaan walaalayaal sal iyo raadtoona ma laha waagii hore intaanu social mediaha iyo baraha bulshada waxaan aanay jirin waxa jiri jiray waraaqo la daabaco ninbaa wuxuu warqad taasoo kala buu soo daabacaya deetana xadiis buu ku soo qoraya iyo waana iyo wacdi xagga hore ama xagga dambe wuxuu kaga soo qoraya haddaad faafiso dhowr casho gudahood waxa aad helaysaa wanaag iyo khayr haddaad faafin weydo 3 casho gudahood musiiba kugu dhacaysa adiga iyo caruurtaada nasallallahu salaam marka anagoo yaryar baan garanayna wax la dhihi jiray waraaqaha qaado daabaco oo 15 xaba ka dhigo dadka u dhiibdhiib yani waa khuraafaad la dhiibdhiibayo oo dadka ku sii faafi iminkana tiiba ka socota tii laftigeedii baa ka socota baraha bulshada xadiis buu soo qodaya ama aayad quraan soo qoraya ama wacdi iyo waanu soo duubaya deetana haddana wuxuu ku leeyahay haddaad faafin wado muddo dhowr casho gudahooda dhibaata kugu dhacaysa musiiba kugu dhacaysa wad halaagsamaysa adiga iyo ubadkaaga balaaya kugu dhacaysa aan meelay ka timaan la garanayn marka su'aasha aan isweydiinna waxa weeye maxaa u daliila ila diintu waxa u baahan tahay daliil shay kasto diin ah wuxuu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay maxaa u daliila in haddaan faafin waayo balaaya imanayso sida awgeed waxaan leenahay walaalayaal waa khuraafaad ha faafinin haddaad ba aragto qoraal ay ku qoran tahay arrimaha aan sheegnay haba faafinin waayo caqiidadaadii wax yeelaysa waa adiga rumaystay qofkaasi wixii qoraalka ku soo qoray oo deetanaysi ka baqay oo cabsiinta ku gashay aaminay inay dhibaato 3 casho gudood kugu dhacayso deetanays ka sii faafiyo dad badan u sii faafi markaas aad ka sii xuntahay faafinta aad faafiso warka noocaasa ayaaba musiibo iyo halaag ay ku tahay diintaada iyo caqiidadaadii baaba halis ku jirta wax aan ilaahay ku dhihin ka baqna waad ka baqatay wax aan ilaahay rasuulkiisu inoo sheegina waad samaysay nasallallahu salaama arinta bedeshay iminka waxa weeye YouTube-ka iyo fiidiyoyada la sameeyay waa maqasheen share isar like comment ya share gare iyo like isara oo subscribe weyn iminka isoo gala okay hadaladaasi waa hadallo guud dad baad arkaysaa iyaga oo
raba inay dadka maaragtay subscribers noqdaan ama ay kusoo biraan channelkooda wuxuu ku qoraya haddaad yeeli weydo sida ama haddaad like-ta ii saari weydo balaaya kugu dhacday oo musiibo kugu dhacday oo waxa weeye suuqul mugdigal oo wejigaagu madooba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un dadka miyaad qasbi oo masankaad ka gelinin oo madhagtaad ka gelinin waxa weeye qofka waxa sameeya ee intuu waxa lagu qasbay habaarka ka baqay caqiidadiisi baaba ayay ku jirtaa khatar ayaa caqiidadiisiba khatar ku jirta hadduu si sax u dalbado dhaho war walaalayaal share iyo like saara waama la garan lahaa laakiin dadka inaad ku qasabto oo taa qasab ku faafi warka noocaasa daliil bay u baahantay haddaana daliil haysana waa khuraafaadkana qofka sameeya ee faafiya ama share iyo like ku sii saara waa qof caqiidadiisi khuraafaad soo dhaxgeliyay way wal ciyaadu billah arintan ka warramaya waxa weeye kale samaanyada waxa la dhahaa maalmo dhaweytore waxaan ka dhageysanay Facebook nin odayaho halka ka hadlayo 100,000 kun oo qof baa daawaday 100,000 kun oo qof baa daawaday muuqaalkiisa oo wuxuu sheegaya waxa anagu haddaan nahay beesha noocaas oo aan reerka ka soo jeedno waxaanu qaadanaa wax la yiraahdo samaanyo sababtoo ah aabahay baa la dilay oo ama awowgay baa la dilay oo waxa dilay wadaad Sheekh Yusuf Kaynuni ama Sheekh Isaaq wadaad noocaas baa dilay oo qaabku dilay baa xitaa faniya oo dadku ay la yaabayaan burbu waxa weeyaan uu ka dhaxbaxay maruu ka dhaxbaxay uu soo noqday buu yiri ana kaaga takhalusayo khud ya ardullah dhulka qaado يعني هو خرافات بالله عليكم dadka inta aqliga leh ee aqligoodu saliimka yahay diinta lama la hadlayna mucjisada noocaas ahi ambiyadii ilaahay soo diray miyanu ka maqalnay nabi Muusa buur ka dhaxbaxay iyo nabi Ciisa maaragtay buur laba buuro dam iskaga siiyay subhanallah qof aan nabina ahayn ummadda nabi maxamed diintiisina aynaan garan xitaa waxay dadkaas haysteen Allahu a'lam ilaahay baa og haday muslim ahaayeen haday wax kala ahayn ilaahay baa inagu og subhanahu wa ta'ala inagu islaam baa inagu dhalay falillahi alhamd taasaan u rajaynayna laakiin khuraafaadka noocaas ah dad baa rumaysan waxa loogu tala galay walaalayaal xaqiiqada nidii sheegayeen anu ra'yigaygu waxa weeye xaqiiqada saxda ah aan idinka warramay wax loogu tala galay dad qabaylada qaar lagu yaso oo lagu liido oo lagu faquuqo oo lagu takooro nas'alullaha salaama dadka sharafta leh ee beesha aan iyagu Soomaali way taqaanaay waxba afka ka sheegayna laakiin beesha sharafta leh ee muslimka ah ee maaragtay ka tirsan kuwooda aqliga iyo saaxiibka waa diinta waxa ku dhahayaan waa khuraafaadna lagaga been abuuranay waana runtooda waa laga been abuuranaya dadka inta sharafta lana waxa ma sameeyso samaanyana ma qaadato laakiin qof kale oo ama beesha sheegtay ama ka tirsanada miyaan ka tirsanaanine ayaa dadka waxa iyagana dadka bani aadamkana ku qasba beeshiisina sumcad xumo iyo magac xumo u soo jiida wax markii horeba loo sameeyay oo loogu alifay in lagu liido oo lagu takooro ummad islaama iyo dad muslina iyo dad maaragtay walaaladeen ah oo maaragtay inagaba sharaf badan oo inaga khayr badan oo ilaahay xaqiisa cid u dhow garan mayne lacalla ilaahay xaqiisa inooga dhow jalla jalaaluhu marka waxaan leenahay waxa waxba kama jiro khuraafaad ka bixinayo ogsoonow lacagta aad ka bixinaysa ilmaha ay dhashay lacag baan ka bixinaya samaanya la dhaha magtii hebel weeye ee abadul aabidii soconaysa khuraafaad bad ku dhacday iska jir caqiidadaadii waxa soo gaadhaysa dhibaato way waxaad aamintay haddaad bixin weydayna dhibaato ilmahaaga iyo gabadhii uu mushaahid ay soo gaadhayso ka qaadanayo war astaghfirullah de waxa waxba kama jiro khuraafaad wad garanaysaa wad ogtahay waxa wax khuraafaad weeye wax ka jira ma jiraan waa wax loogu tala galay in qabaa'ilada qaar lagu yaso lagu liido lagu takooro nas'alullah salaama ilaahay baynu ka magan galinaa subhanahu wa ta'ala qodobka u dambeeyaan ka warrami doona khuraafaadka waxa weeye waa roobka masaska wata waxaad maqlaysaa qof baa dhahaya islaam baa riyoot بريد حسب إنه هيستي إسلام بريوتيو وحكو ريوتو روب مساسلة بدأية أو وحو عنايا تدك تاريخ الصلاة كو عنايا الصلاة دكتها أما تدك سيدا سي عمالة نوع عاسا سمي وحن قراني أنو أنوير سنة كمركو هلا لبادو يكون لبي يلا تنسانو كوروي لبادو يكون لبي لا تنبي جوغنا سوما لبي يلا تنسانو كور نوعي الملعامد يدوكسي قرآن دينا أيا وحا سبحان الله نلقود هيتشرو دادك واوين أن كمقلي تشرني marka la gaaro bish sanadka 2000 ka marka la gaaro maxaa dhacaya waxa imanaya roob masas wato cunaya muxuu cunaya naagaha iscadeeya ee jidkooda bedela ee badneefaada iyo diyaanada marsada nasallallahu salaama ayuu cunaya ayaa lagu akhrin jiray anagu ciyaal yaryar baan iska ahayn oo alxamdulillah ilaahay waxa ugu mahadnaqaynaa macallimiintu ay aqoonta naga soo dhiseen
waxa dhihi jirnay mustaqbalka saad ku ogaatay ilaa berri toolo roobka daayaba adiga yaa ku sheeg inaan la gaadhayo inuu gaadhayna yaa og ilaahay baa og subhanahu wa ta'ala inuu masas wato yaa sheeg ma aayad quraan ay noo sheegtay mise xadiis bay noo sheegay nabi inuu masas wadanayo yani waa khuraafaad waxaan ku soo gabagabeynaya walaalayaal qiso aad u qosol badan laakiin nuxurkeedu uu yahay maaragtay nuxur muhiim ah wadatan oo subhanallah aanan hubin inay dhacday iyo inay tahay qiso la alifay labada ma kala hubo mana kala sheegi karo laakiin waa maqlay marka sababta ugu sheegayna waxa weeye nuxurkeeda faa'iido badan leh waxa la yiri magaalada Burco la dhaahdo waxa gab islaam baa ka riyootay joogtay meesha magaalada dabadeedna waxay tiri waxaan ku riyooday roob masas wata baa da'ayo dad buu cunaya taariikhu salaad iyo dad sidaa iyo sidaas u cunaya dadkii baa argagaxay oo cabsooday markaas waxay tageen masaajidkii shuyuukhdii iyo culimadii baa hadasho dhahay war waxaas waa khuraafaad waxba kama jiraan ha rumaysanina diintiina yani waxba yeelina yani wax yeelina waxa rumaysanina marka masaajidka nin odayo ka soo baxay baa wuxuu arkay dadkan buuqaya meesha taagtaagan war maxaad meesha ka taagsan afka iskaga haysaan ee ka waramaysan waxay dhaheen miyaanad maqlin waxa weeyaan islaam baa riyootay oo tiri masasba imanaya dadka cunay rasuul ma islaam baa riyootay ha islaam baa riyootay buu wuxuu ri war iska dhaafa markay soo jeedaan rumaysan macdala waa markay riyootay soo jeedka iyadoo soo jeeda ayaanaan rumaysan laakiin bal iyadoo riyootana ka waran subhanallah marka sheekadaasi ama ha dhacda ama yaanay dhicin nuxurkeedu waxay tahay waxa weey mustaqbalka ka waramaya oo maaragtay dad baa mustaqbalka ka waramaya oo dad baa dhibaato soo gaadhaysaayo dadka taariikhu salaadka baa la cunayaayo dadka iscadeeya baa la cunayaayo dadka marka ficilada noocaas iyo dambiyada galaba balaaya ku dhacaysa sidaa sheego oo aan daliilna wahayn waa khuraafaad weey wixii daliil wata ee nabigu sheegay taariikhu salaadka nabiga sheegay inuu cadaabul qabri helayo qofka jirkiisa bedela aayad quraana baa ka warantay waa sax laakiin wixii daliil wadanin oo dhan kulluha khuraafaat wa khuraafaat ilaahayna inaga soo hanuuniyo subhanahu wa ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh